Waxaa la sheegay in laba qooley oo qurux badan ay go'aansadeen inay safar galaan oo ay ka tagaan balligii ay muddo dheer agtiisa ku noolaayeen. Sababtoo ah balligii biyihii ayaa ka yaraaday. Saaxiibkooda Dean ayaa ka murugooday, wuxuuna ka codsaday inay isagana kaxeeyaan. Laakiin qooleyada waxay u sheegeen Dean-ka in uusan duuli karin. Dean-ka wuu ooyay, wuxuuna ka codsaday in ay keenaan qaab ay isaga u qaadaan. Kadib qooleyada waxay keeneen fikrad si ay Dean-ka u qaadaan oo uu safarka ula galo. Waxay soo qaateen laan adag oo ay mid kasta ka qabatay dhinac. Waxa ayna Dean-ka ka codsadeen in uu afkiisa ku qabsado laanta inta ay duulayaan. Waxayna uga digeen in uu afkiisa kala furo, haddii kale wuu dhici doonaa. Dean-ka wuu ogolaaday, wuxuuna ballan qaaday in uu raaci doono waxa loo sheegay. Labadii qooley kaymaha korkooda ayay ku duulayeen ilaa ay dad arkeen laba qooley iyo Dean oo duulaya. Waxayna ku dhaheen, yaab, laba qooley ayaa Dean qaadaya oo duulaya. Dean-kii ma uusan awoodin in uu isxakameeyo. Afkiisa ayuuna kala furay, wuxuuna yidhi, indhaha Allaha idinka rido oo maxaa idinka quseeya. Kadib dhulka ayuu ku soo dhacay maadaama uu afkiisa kala furay. Feeraha ayuuna ka jabay. Kadib wuxuu yidhi isagoo ooynaya, tani waa natiijada hadalka badan iyo ballan oofin la'aanta.